قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان قرآني قرآني معجزة الرحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله مني وإياكم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سيدي الإعلامية إن شاء الله تعالى وحن كهل دونا هدي الله إدمو وددا لو مرو قور راحله أما قوري راحله markii aan sidaas niraahno guri raaxa leh isla markaa waxaad dareemaysaa oo maskaxdaada ku soo dhacaya guri kale oo mashaakil iyo dhibaatooyin ay ka buuxaan insha allahu tacaala hadalka qaybaan u qaybinaynaa qaybta koobaad mar walba waxay la mid tahay qaybtii tarbiyada aan u qaybinaynay qayb ka horeysa guurkuba intuusan dhicin waa sidan oo kale u qaybsamaysaa waana xadiiskii rasuulku u lahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam تنكح المرأة لأربع هوينك أفر أيا لو جورسدا وحا لو جورسدا قبل مال كذي حوله هذا وحا لو جورسدا قروح هذا وحا لو جورسدا حسب كذا يا نصب كذا يا قيس كذا وحا لو جورسدا دين هذا رسولكم مروا البتلاديس وحا هذي دردارن كيسو مدة قبل الدين تتقانا إن لجورسدا أو مداس أي دتكو راديان بيهيد ولذلك صدق كلا qofka waliyul amriga oo gabadha umuurteedu ay saaran tahay oo waliga u ah waxa laga rabaa isagana laba arrimood inuu ka fiiriyo gabadha qofka soo doonay oo raba inuu guursado labada arrimood oo kala ah diin iyo akhlaaq labadaas oo kaliya baa la rabaa in laga fiiriyo raggu markay gabdhaha soo doonaan rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam إذا جاء منكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير حديء إذن ما دقف أدرال كتين دين تيسا يا أخلاق ديسا قبرد هلا السيو يان لو حرين شقدي سوا محي يان لو حرين قويس كيبو كذا شيء يان لو حرين محوك شقيا يان لو حرين جقديس محي تهاي وحيابها سوكالودان هفيريننا diinta iyo akhlaaqda kaliya hala fiiriyo hadii uu qofkaasi soo doono gabadha oo loo diido waxa ahaanaysa buu rasuulku takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabiir aw arid waxa dhici doonta fitna aad iyo aad u weyn oo fitnatun fi diin ba dhacaysa diinta ay fitna ka dhacaysa walidaalika wad aragteen dad badan oo la isu diiday oo mashaakil iyo dhibaatooyin badan ay dhaxmareen dad badan oo la isu diiday oo dadkii xumaan ay ku dambeeyeen dad badan oo la isu diiday oo qalaq iyo deganaan la'aan guryahooda ay haysato intoo dhanba waa la arkayaa qodobka labaad oo ka horeeya intaan guur kuba dhicin waxa weeye gabadha in la iska fiiriyo rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam nin Mughira ibn Shu'ba la yiraahdo markuu u yimid wuxuu ku yiri yaa rasuulallaah waxaan rabaa inaan guursado wuxuu ku yiri gabadha ma iska soo fiirisay wajigeeda wuxuu yiri rasuulku sii raaciyay qola ansaar la yiraahdo xilligaas gabdhahooda indhahooda waxba laga helaa ama sidaas oo kale indhaha waxa weeye cudur iyo saas oo kale waxba ka jira ee gabadha iska soo arag buu
taas waxay daliil u tahay in gabadha la arki karo inkastoo culimadu ay kayfiye iyo hab loo arkana u sameeyeen gabadha xaggee laga arkayaa waa su'aal meesha ku jirta culimadu laba qaybood bay ugu qaybsameen qolo tasaahulkooda iyo xadgudubka ay aad iyo aad u dheereeyeen oo yidhi gabadha meelo badan baa laga arki karaa qoladaa warkooda lama qaadan karo lagumana jiro culimadu jumhuurtu islaamku sida ay qabaan gabadha waxaa laga arkayaa wejiga iyo labada gacmood oo keliya kuwaas markii aad aragtana waxaad u daliishanaysaa gabadha haddii wejigana waxaa loo daliishadaa baa la yidhi quruxda gabadha gacmahana waxaa loo daliishadaa jir ahaan gabadhu sida ay tahay sidaas darteed labada haddaad ka aragto wax kaagaga maqani ma jiraan walaalayaal arrimahaasi waa arrimaha ka horreeyo inta aan la helinba sacaadadu waa inaad arrimaha noocaasa u fiirsato waxaa ka mida guurka deganaanta le iyo raaxada laga helo meherka oo la yareeyo ayaa ka mida waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdo meherka oo la yareeyo intee buu ka soo gelayaa guri raaxa leh wuxuu ka soo gelayaa markii ninka meher tiro badan la saaro kumamyaal dollar markii la yidhaahdo gabadha ha lagu meheriyo ninku hadduu nin islaam oo fiican yahay wuxuu og yahay inuu dayn qaaday wuxuu og yahay waajibaad inuu dushiisa saaray haddii aan laakiin uusan diin lahayn warkiisa kuma jirno kaas waa kii la dhihi jiray maxamed axmed raxmatullaahi calayhi waa kii odhan jiray iyada igu xir igu meheri iyada iga xoqi doonte isagoo ula jeeda micnaheeda haddaad boqolaal kun xitaa ku meheriso gabdhaha soomaalida meherka lama siiyo sidaas darteed arrintaasi waa khalad gabadha meherkeeda waa in la siiyo hadday arrintu sidaas tahay walaalayaal gabdhaha waxaan ka codsanaynaa meherkooda inay marka hore yareeyaan haddii ay badiyaan oo ninka meher tiro badan u sheegaan ninku meherkaa ma bixin karo markaasna waxaa dhici doonta inuu ninku nin diintiisa ilaashan yahay inuu og yahay inuu daymaysan yahay inuu shaqo maalintii oo dhan ku soo jiro inay dad u yimaadaan oo dayntii ka raba markaas ay u yimaadaanna ninku wuxuu ku noolaanayaa araqun filleyl maalinkii oo dhanna mashquul iyo shaquu gelayaa habeenkii oo dhan tacab iyo dhibaato ku jira gabadh xuquuqlihii gurigay ku sugaysaa marka ma u malayn sacaade iyo guri raaxala meesha in laga dareemayo ninkaagii laba shifti markuu galo adiga dartaa u shaqeeyo suu meherkaaga u keeno kama heli doontid adiguna wax raaxa la yidhaahdo sidaas darteed meherka waa in la yareeyo miaal baan soo qaadaynaa walaalayaal waddamada ka mida sida waddankeenna soomaaliya oo kale dhowr iyo 10kii sane u dambaysay haddii uu noqdo dowlad la'aan waxaa laga yaabaa dadweynuhu inay waxyaabo badan waddanka soo geliyaan oo ay keensadaan canshuur la'aan inay kugu timaado wax alla waxa businesska oo waddanka la keenayo oo waddankii furfurnaan u dareemo laakiin su'aashu waxa weeye raaxo waddankaasi ma dareemayaa ammaan ma la dareemayaa maya qofna wax habeen walba waxaad ku seexan adigoo dhinacaaga qorigu uu yaallo haddii kale ma seexan kartid sidaa beddelkeed ama opposite-ka haddaan fiirino waddan ammaankiisa la sugay shacabku hadduu rabo waxba yuuna haysanin haddii laakiin dawlo adag ay meesha haysato raaxa ayaa dareemaysaa sidaas oo kale gabadha waxaa weeye wabitaali haddii gabadha meher tiro badan lagu meheriyo ninku wuxuu ka sugayaa gabadhuna inay noqoto heerkii ugu wanaagsanaa inay miaaliye noqoto wax yar haddii ay samayso wuxuu leeyahay intaasoo lacag baan kaa bixiyey intaasoo lacag baan kugu meheriyey markaasaad maantana waxaa ii samaynaysaa marka wax raaxa la yidhaahdo meeshii ma taalla gurigiina deganaan lagama dareemayo sacaadada iyo nolosha fiican iyo deganaantu waxay ku jirtaa marka meherku inuu yaraado haddii ninka meherkiisa gabadha uu ku meherinayo loo yareeyo waxaa dhacaysa inuu xishood u galo gabadha hadduu nusqaan iyo wax gaabin ah ku arko wuu ka xishoonayaa aabbaheed buu ka xishoonayaa si sharaf lahoo wanaagsan baa reerka lagu siiyey walaalayaal arrimaha kale oon ka hadlayna waxaa ka mid a oon iyagana dulmar yar ku samaynayna insha allahu tacaala xuquuqda ay isku leeyihiin labada qoyska labadiisa qaybood ay isku leeyihiin xaqa ay ku leedahay ninku uu ku leeyahay xaaskiisa kan ugu horreeya oo wax la yidhaahdo alqiwaama qiwaamadu waxa weeye maamulka guriga iyo reerka ninka in loo daayo iyadoo ay jiri doonto inaan ka hadli doonno wax la yidhaahdo ashuuraa oo tashi labada qoyska ay ka dhaxayso laakiin maamulka iyo hoggaanka reerka odaygaa iska leh xilligii odayga loo dayn jiray uu isagu wax maamuli jiray mashaakil ma jirin reerku waa kala socdeen laakiin waxyaabaha la arkay oo tajaarubta loo arkay waxaa ka mid a dumarku waxay jecel yihiin mar walba inay helaan
inay rukni shadiida oo umuurteeda ay ula laabato inay hesho nin qof ka dambeeya oo wixii soo gaadhay ee problem iyo mashaakil ay u sheegato waa inay hesho haddii la yiraahdo umuurta dhan adigu qabo ka warrama yay u sheeganaysaa wixii soo gaadhay yay dhibaato u gudbinaysaa marka hoggaanka iyo reerka maamulkiisa waa in loo daayo ragga rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ar-rijaalu qawwaamuuna cala an-nisaa ragga ayaa dumarka ku habboon inay iyagu maamulaan marka sidaas darteed walirijaali calayhinna daraja ayuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala ragga ayaa darajo la dheer maamulka guriga isaga ayaa la rabaa in lagu walidaalika xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam yaa si tadbiiqiyana u imaanaya oo rasuulku u lahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam lan yuflixa qowmun walluu amrahum imra'a dad u dhiibtay maamulkooda qof dumara ma liibaanayaan marka sidaas darteed waxaa loo baahan yahay walaalayaal maamulka waxaa jiri doona tashi aan ka hadli doono laakiin maamulka iyo hoggaanka reerka odayga ayaa iska leh arrimaha kale uu ku leeyahay waxaa ka mid ah taacatu bilmacruuf in taaca wax la yidhaahdo ay jirto oo gabadhu ay ninka odaygaa ka dambayso wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhun fain aطacnakum falaa tabquu calayhinna sabiila allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala haddii dumarka aad ka baqdaan wax la yidhaahdo nushuustu waa waxoogaa ee kala dambayn la'aan haddii ay dhacdo edebdarra haddii dumarka lagu arko ha la wacdiye baa la leeyahay ha la maro haddana hijra filbeyt guriga dhexdiisa uun waxoogaa joodariga ha lagu kala yaro jiito oo qofba meel ha ku seexdo haddii ay halkaasna soo celin weydo waxoogaa ha lagu yar waxaa la wadaadada waagi hore waxay odhan jireen tusbaxa iyo marada fiideeda iyo ha lagu yar dhudhuftay odhan jireen laakiin hadda tusbaxda laydinkuma garaaci karo soo sidaas ma haddii tusbax laydinku garaaco meel aad ogtihiin baad wacaysaan soo sidaa ma marka 911 baa inoo jooga marka waxaa weeye wadaadadu tusbixiin hadda idinkuma garaaci karaan waxay idinku samayn karaan male sidaas darteed waxaa loo baahan yahay aayaadka rabbi subxaanahu wa tacaala iyo kala dambaynta in la ilaaliyo oo loo daayo ragga maamulka gabar waxaa jirta rasuulka u timid sala allahu calayhi waalihi wasalam marka u timid rasuulku wuxuu yidhi adaatu zawjin anti ma waxaa tahay gabar xaasa oo odayla miyaa tahay haabay ku tidhi rasuulku wuxuu ku yidhi sideed ninkaaga u tahay shaqada aad qabatiya sideed ninkaaga u tahay waxay tidhi kama gaabsanayo khidmadiisa wixii awooddayda waan u khidmeeyaa ilaa wixii aan ka cajiso ma ogi inta kale waan qabtaa wuxuu ku yidhi rasuulku bal waxaad fiirisaa undurii ayna anti minhu فإنما هو جنتك ونارك حديث كاس سند كيسو وحسن شيخ الألباني رحمة الله عليه درجة حسن بوغارسي وحيري نينكاغا أفيرسو سيدا آد أطهي أدو نينكاغا وحكوية الجنة هذا إيا النار هذا لبضا بإساقا كوا سيدا استرتد وحلو باهيا ولا ليال كلا دنبينتو إنينا رافين دينتين إنينا كتغين dhaqankeena inayna ka tagin usluubteena inayna ka tagin waad ogtiin markii la kala dambeyn jiray wanaagu markuu jiray laakiin markii maanta la yiri waa la siman yahay waxaad u jeedaan sida ay dadkii noqdeen iyo sida guryaha ay maanta u burburayaan wada aragtaan waagi hore furiinka iyo waxyaabahaas dhibaatay noqon jirtay laakiin maanta waxba agteena kuma in reerku ay kala tagaan tayib waxa kamid ah xuquuqda kale oo ninku gabadha uu ku leeyahay inayna u idmin gurigiisa nin uusan raalli ka ahayn inayna soo gelinin gogashiisa inayna ku fariisinin qof uusan isagu raalli ka ahayn waa inayna ku fariisinin rasuulku xadiis ayuu arintaas Bukhari iyo Muslim ay soo saareen yaa wuxuu rasuulku leeyahay wala ta'dan fi bayti wa huwa shaahidun illa biidni yayna u ogolaanin gabadhu ninka gurigiisa isaga oo jooga inuu sida qof kala soo galo isagoon idan laga haysanin imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi ayaa wuxuu leeyahay arintaas waxa lagu xambaarayaa haddii la og yahay ninku inuusan raalli qofka ka ahayn laakiin haddii uu raalli ka yahay oo qof og yahay waa suuragal laakiin marka la leeyahay waa suuragal inuu soo galo guriga xitaa waa inayna khalwo waxa la yiraahdana waa inayna jirin gabadh kaligeed guri loogu soo galaya arinta diintu ma qabto sidaas darteed waxa loo baahan yahay in umurtaasna la ilaaliyo tayib waxa kamid ah umurta kale uu ku leeyahay gabadhu inay u khidmayso ninkeeda inay u adeegto waxa laga yaabaa haddaan nidhaahno inay u adeegto in dadka qaar hadda ayba la yaabaan oo adeegii ninka loo adeegi jiray waaba iska dhammaaday baan filayaa labada ruux waxa weeye laba ruux oo guriga marna ka wada baxa marna soo gala
لكن أرنتا علماء وكهل المسألة سيدا الراجحة وحل ليه والله أعلم دمرك خدمة ذا يوادي جنين كودا وواجب أرنتا الدليل وحاكوا قبل أن هذا السوم مرينا بعلماء الدليل الشدان أو الرسول كوكوير النين كاجا سيدات أطهى تري كما جاب صدا وحلا وحي أود إذا ونقبتها كدبنا الرسول كوكوير النين كاو جنة ذي النار هذا إسقى أياكوا الله بضبا سيدا استرت ولا ليال قبلها خدمة وإننا كزول وأرن إلهي صالح سبحانه وتعالى حق كلون إنكم كل قبلنا وحى كمذا صوم كتطوع تطوع لنا صوم كأن بشر رمضان أنا هنا maalmaha kala sida khamiista iyo isniinta iyo ayaamul biidka waxyaabaha la yiraahdo ninkeeda oo jooga oo ogolaansho ayna ka haysanin gabadhu ma soomi karto sidaas darteed waxa loo baahan yahay inay ninkeeda ogolaansho uga qaadato marka umuurta noocaas waxa loo baahan yahay la tasumi almar'atu wa ba'luha shahidun illa bi'idni hadith sahih al-bukhari wa muslim soo sooray ninkeedu gabadha isagoo jooga yeena soomin buu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haddii aan waxoogaa ka sheegno xuquuqda gabadhu isaga ay ku leedahay ninka iyaduna waxaa ka mid ah meherka inuu siiyo ninku allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa aatu nisaa saduuqaatihinna nixla war dumarka ha la siiyo waxaad ku meheriseen ilaahay baa siiyey subxaanahu wa tacaala sidaas darteed idinkuna ha ka xastina ha la siiyo waxaa ka mid oo kale waxyaabaha loo baahan yahay dumarku ay ku leeyihiin ragga nafaqada iyo sakanka waa waxa la yidhaha biilka iyo guryaha in la dejiyo gabdhaha وحق أي واجب كأوية الله وحوليه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قف كاس لورد لاي المه وحال جربا بيل كإنه بحيو وحال جربا قبلها إنه جريد دجيو أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم نلا هذا حكيم بن معاوية يا رسول كويمد صلى الله عليه وآله وسلم مركزا وحكور يا رسول الله يو ضمرك يو محي حقه إنه وليهين wuxuu ku yiri waxay kugu leeyihiin marka cunto aad cunayso inaad iyagana siiso marka dharka aad soo gadanayso inaad iyagana u soo gado meesha aad degantahay inaad dejiso inaadan wajiga waxba uga dhufanin inaadan kelimooyin xunxun ku dhihin oodan qabaxa allah wajhaka wajigaagu waxa ku dhacay aadan ku dhihin umuurta noocaas ayaa kamida inaadan ka hijroonin oodan ka tagin baa xaq kamida gabadha illa guriga dhaxdiisa ma ogi meesha la rabo in lagu kala hijroodo ama lagu kala hijrada waxa loo wadaa inaad rag waxaad aragteen hadda inta gabdhaha iska tagaan guriga kala soo seexanayo oo dhahay xaaskii baan isku xanaaqnay saas oo kale taasi mid loo baahan yahay ma guriga dhaxdiisa baa la rabaa wax yar joodariga suuragal haday tahay in la kala jiito marka intaas suuragal walaalayaal ولذلك با gabadhii loo dhan jiray Hinda bint Utba markay rasuulka u timid oo ka sheegatay odaygeedu inuu yahay mid gacan adag oo gabadha biil siinin waxay ku tiri maxaan sameeynaa rasuulku wuxuu ku yiri adiga iyo ilmahaaga wax idin ku filan odayga ka qaata wax kugu filan waa xaqaad ku leedahay marka wax kugu filan ka qaada ayuu leeyahay marka taasna waa xaq gabadha ay ku leedahay inuu odaygu biilka uu bixiyo hadii odayaashu ay biilka bixin waayaan gabdhaha wax ku filan ay siin waayaan gabdhuhu akoonka u daba maraan Soomaaliya lambarka lagu galo waa inaad u daba martaan oo ka qaadataan wax idinku filan laakiin arinta markaan ka hadlayno magaalada ayaa loo laabanayaa waxa magaalada biilkeedu u yahay oday magaalada oo laga bisho dhowr boqol hadda tirada anu waxaan u baahnay bishi dhowr kun baan u baahnay wax ka yeelaya ma jiraan arintaasna khalad weeye waxa macquulka oo magaalada laga bisho laakiin xaq bad u leedahay arinta noocaas waxa kamid ah waxyaabaha kale oo gabadhu ay xaq u leedahay mu'ashara bil ma'ruf in dhaqan wanaagsan gabadha lagu la dhaqmo waa guurka raaxada leh dhaqan wanaagsan in lagu la dhaqmo wa'ashiruhunna bil ma'ruf rabbilahi subhanahu wa ta'ala war gabdhaha ma'ruf iyo wanaag kula dhaqma haddii gabdhaha aydan wanaag kula dhaqmaynin ya imma inaad wanaag ku dhaqantaan iyo inaad kala tagtaan wax meesha yaala labada on weeyaan wada kala meesha ma taala isjiid rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wa sallam حديث إمام الألباني رحمة الله عليه صحيحي وحولي خيركم رسولكم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي قفك إذن كو خير بدن وقفك أو خير بدن رير كيسة أنا قلنا وحان أهيبو قفك إذن كو خير بدن رير كيسة مركا تاسنا رسولك أسوأ يضيشاء يا ولا ريال نوغو سقنتي وإن الله سبحانه وتعالى فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان مركا وحا ويرقو تعاملك قبلها لبا قيبود باي او قيبسمين بعلماده leeyeen inta badan qola xad gudubkeedu uu batay iyo qola adaygeedu uu badan yahay waa sidii tarbiyada aan sheegayno labadaas qaybood midna faa'iido ma laha shidada iyo saraamada adag
iyo waxa la yiraahdo adkaanta tirada badan iyo tasaahulka iyo jileeca tirada badan labada midna waxba laguma maamulo marka walaalayaal waxa kamid oo kale xaq gabadhu ay ku leedahay odayga wax la yiraahdo xaqul mabit inuu guriga odaygu soo seexdo ragga qayb badan oo kamid ah maanta waxa lagu arkay inay shaqo ku maqan yihiin shaqada markay ka yimaadaan meel kale ku soo dagaan waxay imaanayaan meelaha lagu ciyaaro waxay imaanayaan fadhi ku dirka waxay imaanayaan makhaayadaha halkaas uu maanta waqtigiisa ku dhameyn saaxiib uu leeyahay qosolkiisa iyo faraxiisa oo dhan meeshaas ku soo dhameeyay caawa xilli dambu guriga soo galaya biduuni salaamin wala kalaam isagoon salaamna gabadhii salaamaynin kalaamna aanu celinaynin wayartami ala firashi markaasuu joodarigiisa iyo firashkiisa uu ku duldhacaya kaanahu jiifa isagoo moodid baqti ولذلك بعد مودا قبضوا إننا جوريا كلها أوجوجين إلا إننا أوجوجين وحكلا إلا للكنس والطبخ واحد مودا عن تكرين يا جوريا حاقد إن يدو أوجوجته مين أوبا هنين قبضوا مرح يا فرح وحلا يدهذا مين أوبا هنين كفتن تراب بدن مين عيار يدو أوبا هنين أنت رجل الله سو عيار يصدق مركا وها بونس وما لا عياره sidaas darteed waxa loo baahan yahay raggu inay Allah ka baqaan subhanahu wa ta'ala waqtiga ay faraxsan yihiin ee nishaadka iyo firfircoonida ay hayaan guryahooda ku dhameeyaan ayayna ku dhameeyeen duurka hadii loo diiday walaalayaal nin la yiraahdo Salman al-Faris iyo nin la oran jiray Abu Darda ba rasuulku ikha wax la yiraahdo ku sameeyo walaalayn markii labada nin uu walaaleeyay Abu Darda nin wuxuu iska ahaa ee duur galayo oo zaahid ah oo masaajidka iskaga jira maalin oo dhan uu soomi jiray habeen oo dhan cibaado ilaahay buu taagnaan jiray ninkan markuu yimid wuxuu arkay gabadhii odaygu qabay oo dhar iska liita iska qabta diricii baatiga ahaa ee jikada ay wala jirta iyo wax lamida iyadoo qabta buu arkay wuxuu yiri maxaa kugu dhacay odaygaagii soo kan jooga ma labisat waxay tiri walaalka Abu Darda adduun tan kamale gabadha hadalkeedu waa hadal muhiim ah Soomaa adduun wax la yiraahdo dan kamale annagana danaga male marka wuxuu sameeyay inuu yiraahdo ninkii isugu soomana afurka markii la gaadhay waa la wada afuray markii la afuray Abu Darda sida caadadiisu uu iska kacay muxuu rabaa inuu salaadu istaagu rabaa Salman uu ku dhagay gacanta uu fariisiyay wallahi inaad istaagayni buu fariiso wacdi buu u qabtay wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala xaq buu kugu leeyahay ehelkaagu xaq bay kugu leeyihiin ilmahaagu xaq bay kugu leeyihiin فاعطي كل ذي حق حقه وحول بحقي سسي صبحي بار ليسوي من رسولك والدعوة هان لبدي إنه يسحله حاله وحسن ودعي رسولك وحده صلى الله عليه وآله وسلم صدق سلمان بارون شيء يقول حديث كان صحيح البخاري وكسويه سلمان بارون شيء أبو دردان هل كاس قصدي اللغة هلا حدي عبادة إلهي اللو ديدي حدي صومك ولا ليا اللو ديدي haddii qiyaamul leelkiya salaatu tahajjudki raggi loo diiday ma u malaynaysaa in cafeteria meela shax lagu soo dhameynayo turub iyo qashin halka in lagu soo dhameyn karo waqtiga suuragal ma aha marka waa in guryaha raggu ay yimaadaan waxa kamid oo kala gabadhu waxa ay ku leedahay oo ay ku helaysaa saacadadeeda in tacliimu diiniha diinta wax laga baro rasuulku wuu bari jiray sallallahu alayhi wa alihi wasallam nafaqada iyo biilka deegaanka iyo guryaha waxa ka haboon in gabadha wax la baro gaar ahaan hadii ayna gabdhuhu aqoon balahayn way ka sii darantahay gurigu sidee buu ku badbaadayaa waa in gabdhaha diinteeda kor loo qaado oo wax la baro waa laga maarmaan xaqa kale oo gabadhu ay ku leedahay odayga waxa kamida al-ghira alayha inuu sayro ninka dumarka masayrka waxa kaga fiican ragga kaga fiican ragga waxa la yaab la in la yiri waxa la arkay بعض الحيوانات حيوانات كدور جوجتا دورك جوجا قار كود بارجع كم مصير بدن حيوان كقاربان أوغولين كود الدق إن لو يما دو أكتي سلا صومرو لكن رجوا حال أركي دمر كودي أنت ركل جوري ويما دان كسي بحيو وسوقل يو ماشى مرول بنين بعك فدي جوري لحديث الجوجا أرنت النوع عاسي ديوس نيم اللي هذا كاسو كله إن لو أقول هذا ما رجوا أرنت يين وضو القادن قبلوهنا هالسمينين خير الله ينسيه أمور النوع عاسيان للسمينين طيب وحاكم إذا هدي رسولك ولا لا يلؤدي الحم وحلا يراهدو ودماشيك إنك لو يقانو أو إنك قبل قبل لا الشيء كورن باليديكا رسولك وحيد واب موت وجيري هدي كال الدين محاض لينا يساكو كلو عدو يهبان لجرنين يملو كيم كيلي إنك لا الشيء بقى يابا إنه بوحور ريبي لهذا سورة قال صومه لكن كان كلام حور ربيع
waxba u reebi maayo sidaas darteed walaalayaal arrinta noocaasi suuragal ma aha yaan lagu tumanin xaqa noocaasa ragga masayrku yayna ka tegin war haddaad waddamo kala joogtaanna masayrku yuuna idinka dhammaanin ha isdhihina meeshan kuma hadli kartida afka asukuutu salaama waxaa la yidhahdaa aamusnaantu waa nabadgeliyo marka dareerkaagii oo nin la jiifo aamusnaantaasi mee dayuusnimaa la yidhaahdaa marka wax la yeelana ma aha ayib xaqa kale oo mushtaraga ah haddii aan qaybta uga soo baxno waxaan u gudbaynaa qayb labada ruux ka dhaxaysa qaybta labada ruux ka dhaxaysa waxaa ka mid a walaalayaal sirta qoyska inaan la faafinin labada ruux sirtooda iyo gurijoogooda iyo dhaqankooda iyo sariirta umuurta ka dhacaysa hawlaha ayaan suuqa la geynin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam ninka ka sheekeeya reerkiisa intay isgaadhaan oo gabadhiisa uu gaaro iyaduna ay gaarto umuurtaas sarbeeb baa ku jirta dabcan waanaad garan kartaan labadaa ruux oo sidaa isu gaadhay haddana uga sheekeeya bannaanka waa asharu khalqi illaahi weeyaan khalqiga ilaahay qofka ugu shar badan weeye qofkaasi marka arrinta noocaasa walaalayaal ha laga waantoomo yaana laga sheekaynin waxaa ka mid a xaqa kaloo ay isku leeyihiin labada ruux almunaasaxa baynahumaa inay labadoodu isu naseexeeyaan naseexadu dowr weyn bay ka qaadataa dadka umuuri ka dhaxayso gaar ahaan qoyska gabadhu yayna ka zuulin inay odaygeeda u naseexayso odayaasha qaar waxaa jira anafadu waxa la yidhaha anafadu waa santaag waxa la yidhaahdo iyo edabdarrada soomaalida arag ragga qaar baa iskibrinaya oo diidayaba gabadhu inay wax u sheegto maba ogolaba ma haddaad ii bilowday buuhi inaad hadasho aduguna oo aniga i waaniso marka taas oo kale yaan la samaynin walaalayaal gabadhu xaq bay u leedahay inay ninkeeda wanaagga u sheegto waa inaad waaniso waa inaad wax walba u sheegto marka naseexada noocaasi qayb weyn bay iyaduna qoyska ka qaadataay waa in lala yimaado xaqa kale oo labada ruux ka dhaxeeya waa ashuuraa shuuradu waxaa weeye tashi labada ruux waa inay tashadaan umuurta qoyska waa in laga tashado maamulka guriga waa in laga tashado ilmaha dhaqankooda waa in laga tashado haddii aan waxaa laga tashanin see reerka loo maamulaya walaalayaal marka tashigaasi waa inuu ku jiro oo gabadha lala tashado qiso la yaable waxaad xusuusataan sulxulxudaybiya markuu dhacayey oo rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam meeshii lagu joojiyey uu soo maraayey oo nimankii qureysheed ay ku yidhahdeen magaalada geli maysid asxaabtiisii wuxuu ku yidhi halkan baynu ka laaban doonaa ee waa in timaha la xiirto oo wixii hadiyo xoolooda wadaan aad meeshan ku qashaan intaa markuu yidhi asxaabtu way diideen waxay yidhahaan ma annagoo halkan soo gaadhay baan magaalada ka laabanaynaa rasuulku aad buu u xanaaqay warkiisana waa la diiday isagoo sidaasa buu gurigiisa soo galay gabadhiisii xaaskiisii ummu salama buu u yimid wuxuu tidhi rasuulka maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi dadkii baan hadalkaa idhi weyna i diideen warkaygii gabadhu waxay kula talisay anigu wax ma kuu sheegaa adigu qofkii kuu xiiri lahaa soo kaxayso oo ha laguu xiiro kii wax gowrici lahaana intaad u yeedho xoolaha aad waddo ha la qalo ilaan xajkii baa loo socdaya cumradii iyo markaa waxbaa la qalaaye marka sidii buu rasuulku sameeyey markii la arkay rasuulkii oo xiiranaya iyo rasuulkii oo wixii wada la qalaayo dadkii oo dhan qofba qof buu ku jeedsaday asxaabtii iyagaa isu wada xiiray nin walba nin buu ku jeedsaday taladaa hal gabadh baa keentay walaalayaal dadkaa tirada badnaa oon filaya 1,500 taqriiban inay ahaayeen waxaa weeye way keeni waayeen fikradda noocaas marka dumarkii iyaguna tashiga noocaasa waa in lala tashado ayib waxaa ka mida oo kale waxyaabaha labada ruux ka dhaxeeyo isku leeyihiin sidqulmawadda waxaa weeye guriga raaxada leh waa inuu jacayl dhab ah uu ka jiro walaalayaal waxaa laga yaabaa haddii la arko wadaadada qaar iyagoo jacaylka ka hadlaaya inay dadku la yaabaan war diintu jacaylka way ogoshahay ilaahay baa qur'aankiisa ku sheegay rabbi subxaanahu wa tacaala gabdhaha xuurulciinta ah markii laga hadlaayey maxaa la yidhi curuban atraaba ma huwa alcurub alcuruuba culimmadu waxay leeyihiin waa almar'a almutaxabibatu ilaa zawjiha waa gabadha ninkeeda isjeclaysiisa siday isu jeclaysiinaysaa kelimooyin wanaagsan bay u adeegsanaysaa erayada fiican bay u isticmaalaysaa dhaqan fiican bay tusaysaa isaguna sidoo kale walidaalika erayada dabacsan ragga ayaa ku habboon ninkaaga inaad u adeegsato laakiin waqulna qawlan macruufan innagoo qaadanayna kelimada la yidhahdo waxaan ka hadlaynaa abbowa macaana oo kale
أبو معنا هذا كورنا دور بوي اللي ويدي مركلة أنا محاضرة كجري ما لو أديك سنكرا بالنين أنين كاجين أبو معنا لو ما أديك سنكرا سورة قل ما إن لو أديك سد كلمة النوعاسة كلمة ذا كلمة دبع سوي قبلها مركة وحكون رفاضي قبلي كونفرك يميد وكلو يكون رفاضين مهاجر أبو هو حنين بما يقانن meelaha ay kuwa kale ka yaqaanaan kelimooyin kale marka waxa loo baahan yahay walaalayaal erayada aadka u dabacsan ninkaaga in loo adeegsado waxaana ka baxaysaa hadii aad adeegsato qof kale u adeegsato waqulna qawlan ma'rifan ibn kathir markuu fasiraya su'aalan wa jawaaban buu ku fasiraya gabadha hadalkeedu waa inuu koobnaado oo hadal la xadidan uu noqdo laakiin haddii erayada dabacsan noqoto dhibaato ayaa meesha ka imaan karta dadka qaarkood waxa rabbi leeyahay wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad eraya jiljilicsan hadhiina ragga oo ragga qaar jiran baa ku jira jiradaas waxa la yiraahdaa waa maradu shubuhaati wa maradu shahawaat labadaas lagu jiradaa qalbigu labada ku jiradaa ya imma shahwa inuu ku jirado ya imma shuhba inuu ku jirado marka taas ku dhacaysee hal laga daayo kelimooyinka noocaas laakiin ragga in loo adeegsado ayaa laga maarmaan iyo ninka ku qabaadiga nin gabaya ayaa wuxuu leeyahay idaa lam yakun safu alwidaati tabi'atan fala khayra fi wuddin yaji'u takallufa ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا إذا لم يكن صف الوداد طبيعة جعيلك هديئوسا مد إسك الطبيعي أهين مد سيدي سأوي مد هدوسا أهين مد لبدا الروح إيو إسجعليين وقف ولبا قفك كلام من وإلى جعيلك وكيمانا يا لبدا الروح هدوسا أهين فلا خير في ود يجيء تكلفا بولي جعيل كيمد اسكو قصب تكلف وحال يدا اسكو دب او اسكو قصبيسو اسكو قصب كاديان مثال كبخي waa dhool cadeynta Mareykanka la leeyahay waxba ka jirin soo sidaas ma waxaan dhoolaha la cadeynayo saas oo kale wax ka jira malaha taas jacayl lama yiraahdo marka kaas oo kale yaji'u takallufan waa la isku dhibayaaba inida nafteeda ku dhibaysa soo sidaas ma marka taas walaalayaal suuragal ma wala khayra fi khillan yakhunu khalilahu qof khaliila oo khaliilkiisa kala khayaamayana faa'iido ma laha baa la yiri wayalqaahu min ba'd almawaddati salaamun ala ad-dunya idha lam yakun biha sadiqun saduqun sadiq alwa'd munsifa adunka nabadgeliya ha ahaato hadii ayna labada ruux ka dhaxaynin jacayl dhab ولذلك باو حليه شاعر كلا ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل قف جعيل كيسو ولا صعدو دبيشة أو مربى ميل راعية كاسي بركة ملك سميدان أرق قف مربى واحد جعل سنة كيبا قف بو جعليه رقا قاربا سيداس تمر كان طبعا ويكو جيران لكن هوانك وانا ونحريسنا marka waxa laga maarmaan ruuxu jacaylkiisa ninkeeda un baad siin kartaa gabadhu waa inay ninkeeda jeclaato ninkuna waa inuu gabadhiisa jeclaado dadka kale islaamnimada ukhuwa islaamiya jirto oo ku jeclaanaysa laakiin jacaylkan laga hadlay ee qoyska qofkaas uu dhaxmaraya walaalayaal waxa kamid oo kale waxyaabaha laga maarmaanka waaqiciya xayaatada zawjiyada waa in waxyaabo badan la fiiriyo meherka waa inuu si waaqici ah looga hadlo oo waxaan ka wadnaa xadda waa inaan laga gudbinin xafladda zawaajka iyo arooska qaabka loo qabanayo waa inaan xadda isagana laga bixinin nafaqada waa iyo wax la yiraahdo biilka waa inaan iyaduna xadda ayna ka bixin rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam mar ay dumarkiisii ku qayliyeen oo yiraahdeen biil baan ka rabnaa ilaahay baa subhanahu wa ta'ala qur'aan ku soo dajiyay يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما هدي ربتان باليري الدنيا إيا الراحة إيا العكت ربضان إيا الدولار إيا قرية هير سراء هل إذن فريا إمادة الليل ولا إذن فريا haddii aad rabtaan rasuulka iyo Allah iyo rasuulka iyo aakhiraha hadaad rabtaanna waa inaad raalli ku ahaataan maamulka la idinku maamulo marka walaalayaal dadka waa inaan la kalifin oo takalluf wax la yiraahdo aan lagu sameeynin waa laga maarmaan waxa kale iyadoo laga maarmaan ah waaqiciyadu waxa weeye wax suuragal ah sifaadka gabadha lagu raadinayo ilaa waxa rabnaa guri raaxale in la tagee sifaadka aad gabadha ku raadin waa inay yihiin mid suuragal
lama rabo mithaaliya waxa la yiraahdaa xad gudub ragga qaar baa maskaxda waxay ku hayaan gabadh aad moodid isagu inuu samaystay waa inay sidaa tahay waa inay sidaa tahay waa inay sidaa tahay marka nin waxa jira caaqil ah oo intuu nin u yimid baa wuxuu yiri gabadh noocaas oo saasaan rabaa markaas wuxuu ku yiri gabadhaas way joogtaa waa la heli doonaa laakiin aduguna waa inaad sugto xagee laga helaa buuri ta tilmaamaysa jannada baa laga helaa buuri adduunka ka heli maysid marka maxaa loo baahan yahay walaalayaal rasuulku yiri sidoo yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yafrik mu'minun mu'mina in kariha minna khuluqan radiya minna khuluqan aakhar hadith sahih muslim ku sugan gabdhaha waxa loo baahan yahay marka aad fiirinayso ama guurka aad raadinayso inaad ku fiiriso nadra takamuliya waxa la yiraahdaa si guud waa inaad u fiiriso gabadha haddaad tiraahdo waa inay aqoonta halka ka joogto waa inay quruxda halka ka joogto waa inay qiimaha kale halka ka joogto waa inay qoyska halka ka joogto xageed ka keenaysaa marka si guud bay isu kabayaan rasuulku wuxuu yiri haddaad meelaha qaar raali kaga noqon weydo meelo aad raali kaga noqoto baad helaysaa walidaalika sidaa bay raaxadu ku jirtaa ninkii yiraahdo waan raadinayaa waxa way isagana raaxada gurigu way ka maqnaanaysaa mana helaayo way arinta noocaas tayib rasuulka waxa la weydiiyay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaa ugu khayr badan baa leeyahay dumarka wuxuu yiri haween waxa ugu khayr badan midda marka aad fiiriso ku farxad gelinaysa midda markaad amar siiso oo wuxuu sheegtana ku ateecaysa midda aan marna ku khilaafaynin taas haweenka ugu khayr badan ولذلك وحديث كان الرسول يقول خير النساء ركبنا الإبل صالح النساء قريش أحناه على ولد في صغره وعرعاه على زوج في ذات يدي حديث صحيح البخاري مسلم كوسغان هوانك وحا في عنبود هوانك قريشات محاجر المهنا وي برباريان أوديغانا وي أددالان مركا والا مارمان أمورتا نوعاسا إن لهلو أحاديث تسوال الله الفوائد تربضا بانكيه لينا الفائدة أما وحيابها أنا حديثا كقادنا إنه وحا كميدا أمورها سو صعدا كو قبرنا وناكسن إيا قور كالراحة له وامدا مركات في رساكو فرحات قلينا إيسا في رضو صديقو إيمان إيسا محاسكو فرحات قلينا إياه قبرنا وإن الدداشو وإن الدرك هذا إيا منظر كذا كو دداشو وإن إسهاجين تيدا إيا إصحابين تيدا كو دداشو مركا تاس مركي الددال كاب بحيسو وحالة من بارمان قفكو وي فرحات قلينا إيسا أما قروح دا وحا اللي يراهدو oo atan ilaahay u dhaliyay ilaahay badadka masmin subhanahu ummaduna isku mid quruxda uma taqaano qof la arka waxa laga yaabaa inuu si u yaqaano laakiin midda la iska waafaqsan yahay waxa weeye inay gabadhu is hagaajiso waa laga maarmaan taas weeye midda xadiiskuna uu tilmaamayo arinta labaad oo laga maarmaanka waxa weeye gabadha haduu odaygu amar siiyo wax khayr u sheego amarka aan sheegayna ma aha inuu amar intuu bartay wax walba iska ka amray taasi suuragal ma midaan ka hadlayna waxa weeye mid rasuulku sheegay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq horta waa inaan sida ogaan qof bini aadama allah wax arag gelinaya lagu yeeli maayo odaygu waxa uu ku amrayo waa wax diinta sal kule inuu yahay marka hadii wax diinta ku fiican uu ku amro gabdhuhu waa inay warka maqlaan oo odayga yeelaan warkiisa tayib arinta kaloon ka qaadanayna waxa kamida gabadhu inay ka fogaato meelaha shakiga leh odaygeedii maanta wuxuu ugu yimid iyada oo nin uu guriga kula uu ku jiro kaba soo qaadin iska fadhiyo waa keligii oo iyada waa keli albaabku oo xidhan yahay soo arin laga shakiyo ma waxba ka soo qaadinayna wax dhibaato marka ku arag laakiin shaki baa meesha ku jira wuxuu arkayaa xaaskiisii oo niman kale oo baabuur la saar wuxuu arkayaa shaqada haduu yimaado islaantiisii oo niman 24 saac la kalaamayso hadal unalka afka kula jirta waxa soo kale waa wax rago maarta qalbigooda wax dareensiinaya marka umurtaana waa inay iska ilaaliyaan tayib waxa kamida waxyaabaha aan ka qaadanayno ahadiistan inayna gabadhu musrifad ku ahayn musrifa waxa way israaf waxa gudub xaqi taamki iyo sharaabki iyo umurtaas inayna israaf ku ahayn ninkeeda inayna takliif saaraynin oo ayna ku dhibaynin taqliidiyad inayna ahayn maxaa laga wadaa taqliidiyad
gabdhaha qaar waxaa jira aba laga yaabaa inayna fikradoodaba ayna ku soconayn inay fikrada kale un bay ku soconayaan dad kale daba socdaan waxay soo arkaan bay daba socdaan taasina suuragal ma aha waxa kamid oo kale waxyaabaha laga maarmaanka ee guriga deganaanta u keenaysa inay xanaanka iyo jacaylka gabadhu gurigeeda ku celiso ilmaheeda iyo odaygeeda inay ku celiso tarbiyadii wanaagsaneedna ilmaha inuu ka muuqdo waa laga maarmaan waxa kamid oo kale waxyaabaha laga maarmaanka ah gabadhu inaynan ahayn mid la yiraahdo manaana mid mar walba odayga ku manad sheegata haddii ay cunto samayso waxay leedahay adiga dartaabaan waxaan u sameeyey haddii ay soo labisato waxay leedahay dartaabaan u soo labistay haddii ay darta oo inaad cunto karayso lagama maarmaan weeye soo maahayn waa lagama maarmaan in cunto la sameeyo odaygaaga inaad u khidmaysaan lagama maarmaan bay ahayd waxaa ka mid oo kale waxyaabaha lagama maarmaan guriga deganaanta u keenaya in gabadhu aynan ahayn wax la yidhaahdo annaana mar walba waa taahda la yidhahdaa taahdo soo sidaas maaha 24 saac waxaa weeye far yare hadday xanuunto aahda heesaaca oo dhan waxaa weeye ولذلك العلماء waxay leeyahdaan الزوج لا يحب أن يكون بيته مستشفى نكون ما جعل gurigiisu inuu noqdo isbitaal laga taahay 24 saac suuragal ma arinta noocaas marka walaalayaal taasna waxa weeye laga maarmaan in la bedelo dhaqanka fiican sida kuma jiro odayga 24 saac oo taahay markuu yimaado muxuu sameeynaya isaguna sariirtiisaas ku dhacaya soo sidaas ma away guriga raaxada la ka hadlaynay suuragal ma raaxinay meesha timaado waxaa ka mid oo kale arinta laga maarmaanka gabdhaha in la siiyo firaaqo oo gabadhu ay dad tira badan u shaqeeyaan oo umurta gurigooda dhan loo qabto ama odaygu ha u qabto ama dad kale ha u qabtaan sida wanaagu kuma jira waa inaad ogaataan gabadha haddii wax walba loo qabto kaliyeed maxaa soo baxaya sida idinku aragteen inay sariirta la tagta telefoon maanta dhan telefoonka inay wareejiso waa inta qaar waxa la sheegay inta fariistaan bay fiir maskaxdooda bal qof ku soo dhaca way ka fikiri ruux ku soo dhaca marka kaas ay diraysaa telefoonkiis marka qofka waa inaad mashquul adigu aad ahaato gurigaaga adigu ka shaqeyso cidna yeena ku shaqeyn ka shaqeyso gurigaaga shaytaan baa kula shaqeyn haddaad firaaqo noqoto wax badan buu ku xusuusinayaa marka arinta noocaasna waa inaad isagna ka tanaasho waa laga maarmaan walaalayaal guriga degan wuxuu ku jiraa biriga waxa la yiraahdo ibn umar sidoo yiri albirru shay'un hayyinun wajhun taliqun wa kalaamun layyin gabadha mar walba wajigeedu waa inuu furfuran yahay gabadhu waa inay bashuusho tahay bashuusho waxa la yiraahdaa dadka faraxsan mar walba waa inaynan ahayn qof 24 saac wajiga ururinaysa oo iyada dhanba xanaaq uu ku jiro waa inaynan khushuunada iyo adkaanta gabadha wada kuma la yiraahdaa marka umuurta noocaasa waa inay gabadhu tahay mid ninkeeda thiqa iyo itmiinaan iyo deganaan gelinaysa mar walba waa inay umuurta iyadu ay kabayso oo tiraado waxbarashada iyo waxyaabo badan ay ku caawiso waa laga maarmaan umuurta noocaasa walaalayaal waxa laga maarmaan oo kale gabadhu inay tahay katuuma oo hadda ka hor baan soo sheegnay sirtana ay ilaaliso umuurta kale oo laga maarmaanka waxa kamid ah labada ruux qof walba qofka kale nafsiyaadkiisa inay isfahmaan ruuxba waa inuu ruuxa kale fahmo waa inaad qofka odaygaaga ama gabadhaada kaftankeeda taqaano waa inaad taqaano markay careysan tahay waa inaad taqaano waxay jeceshahay waa inaad taqaano odaygu wuxuu nacayo waa inaad taqaano waxyaabahaas oo dhan arintaana waxa daliil u noqda shurayh al-qaadi ninkii la oran jiray ee xaaskiisa markay aroos galeen uu damcayde ragga wada aragteena markii arooska la galo guriga loo kala tago maxaa la yiraahdaa xabaaliya ninkii loo kala tag soo sidaas ma ahayn raggu faraqaad bay bilaabayaan gabadhu waxay tiri u kaadi sheekhow markaas tiri in alxamdulillah khudbayba bilowday kadib muhiimada kaliya waxay tiri waxaad ii sheegtaa waxaad jeceshahay waxaad neceb tahay markaas uu yiri waxaan tiri waxaan jeclay waxaan necbay kana iyadoo sidoo kale 20 sano isqabnay tiri waligii uu leeyahay ninkii waligiina gabadha isku ma naadicin waxna soo dhaxgalo dhibaato ana ma naarag waa laga maarmaan in la isfahmo ilmihii baa kamida in iyaga naftooda laga gaaro go'aan ilaahay baa keenaya ilmaha laakiin waxa suuragal in la arko odayaal dhahaya waa inaan bal sanad iyo raaxa aan ku sii jirno ilmaha dib isaga sii dhigno oo gabadha aad aragteen ilmaha laga joojiyo walidaalika culimadu waxay leeyihiin hadii sidaa la sameeyo oo xubuubta iyo waxyaabaha la siiyo dumarka waxba suuragal inay sidaa ilmaha uga tagaan oo mandhaleysnimo ay bilaabaan sidoo kale gabdhaha qaar baa waxay leeyihiin ninka waxaan rabnaa intii sanada inaan isbarano wala isqabaayo ogow maxaa la isbarano kale maxaa dhima waba la isqabaayo waxay leedahay waa inaan sanad isbaraniyo 2 sano markaasaan waxa weeye aanu gudbi doonaa umuurta noocaasa
ولا ليال إن شاء الله تعالى waxaan ku soo gubagabaynayaa khilaaf hadduu ka dhaco labada ruux waqtiga ay ugu dhamaaday labada ruux haddii uu khilaaf ka dhaco qaabkii khilaafkaas loo maarayn lahaa waa lagama maarmaan kow waa inay fahmaan labada ruux waxaan ka dhaxeeya masuul fahmi ba mise horta waxba u dhaxeeya dhibaato waxa laga yaabaa inuu hadal qofna si uu yiri baa leeyahay qofna si uu qaaday waxa laga yaabaa dhibaato ba inay dhaxoolin wax yar baa laga yaabaa in labada ruux gafuurka isugu taagaan intaas oo maalmood marka umuurta la isla fahmo midda labaad ee lagama maarmaanka haday dhibaato dhacdo waa in mushkilada iyo dhibaatada jirta la isla xadeeyo oo la soo koobo waxa laga yaabaa dadka qaar haday dhibaato ka dhacdo in la soo faylal hore la soo qof la keenaya weligaaba saas ahaydoo waa hoobaas ay ugu tiro hadal noocaas waa iga soo ka gaaray waxa ayaan loo gudbina arinta hadda laga hadlayo waa in lagu soo koobo umuurta qof la arka waa inuu sheego qofka kale umaleeya hadalkaaga inuu adiga sawaab iyo sax noqon karo ninkaaga hadalkiisuna inuu khata noqon karo ninku waa inuu aamino qof marka hadaa istiraado adigu hadalkaaga waa sax mar walba suuragal ma aha ama gabadha keedu mar walba waa been suuragal ma arinta noocaasina waxa laga maarmaana markii khilaaf reerka soo dhaxgalo in hordhac la sameeyo hordhacaas waxaan ka wadnaa waxa la rabaa in wax la xalliyo Soomaha waxa la leeyahay wala tansawu al-fadla baynakum rabbi leeyahay war umuurtii idin ka horeysa ha halmaamina waxa waad ku fiicneed wax fiican badii sameeyay khayr Allah ku sii laakiin arintan iga garbax baa qof kale leeyahay waxa laga maarmaan qof waliba qofka kale inuu i'tiraaf uu sameeyo hadii khalad aad adigu sameeyso khaladkaaga waa inaad qirato raggu waa inay qirtaan dumarkuna waa inay qirtaan i'tiraaf waxa la yiraahdaa fadiila i'tiraaf bil khata fadiila la yiraahdaa in la qirtaa waa fadiiliya laga maarmaan arimaha ugu dambeeya waxa weeye walaalayaal طبائعda ilaahay dumarka uu siiyay tabeecadooda waa in lagu samro haweenka ilaahay masayr wax la yiraahdo buu siiyay masayrkana waa in lagu samro rasuulku waa kii oranayay sallallahu alayhi wa alihi wasallam gharat ummukum hooyadin way masayrtay markii Aisha intii loo keenay weelkii cuntadu ay ku jirtay ay kala jabisay war hooyadin waa masayrtay kadibna weelkii intuu isku soo celiyay baa sidaas lagu cunteeyay marka insha Allah ta'ala taasna waa laga maarmaan walaalayaal waxa kale laga maarmaana inuu qof waliba raali ku noqdo ruuxa kale ilaahay nin buu ku siiyay Soomaa ninkaaga raali ku noqo soo raba ku ahaado isaga raali ku noqdo ilaahay gabadh buu ku siiyay gabadhaada raali ku noqdo waxa laga maarmaan oo kale in la isu tanaazulo oo dhibaato haday qof walba qofka kale uu tanaazulo waa laga maarmaan waxa kale oo laga maarmaan walaalayaal tabaa'icda labada ruux inay isbartaan saacadadu sidaas bay ku jirtaa inay isbartaan weeye waxa kale oo laga maarmaan mushkilad iyo dhibaato haday ay qoyska ka dhaxdhacdo dhibaatada inaan guriga laga saarin taas waxa muhiim ah labada ruux markay isguursadaan ee ugu horeysa inay isla xadidaan hadii dib naga dhaco gurigeena ayna ka bixin dhibkaasi walidaalika waliba waxa ugu daran dhibka u gudba qoyska gabadha reerkooda ama ninka reerkooda mid waliba hal dhig buu wax ku maqlaa gabadha hooyadeed haday 24 saac hooyo ninkii wuxuu yiri ma taqaana waxa Soomaantana yiri waxa Soomaantana yiri reerku halka ma ku dhisnaanaya suuragal ma ninka gabadha waxa la qabta islaam baa la qabta soo sidaas ma duqba la qabta iyaduna marka suuragal ma reerkaasina inuu dhaqmo isaguna istishaara kamida dadka ra'yiga leh ee umuurta khibrada u leh in laga la tashado iyaduna waa laga maarmaan arinta noocaasa insha Allah ta'ala ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabaynaynaa in waxyaabaha keena sacaadada iyo guriga wanaagsan iyo raaxada labada ruux inay wax isu soo hadiyeeyaan waxa laga yaabaa dadka isqaba inay weligood badad isqaba waxba isu soo hadiyeen rasuulku sallallahu alayhi wa tahadu tahabu war wax isu hadiyeeyo waa isku jeclaanaysaan hadii raggu aad gabadhiina ka safartaan oo magaalo kala aado markaad soo laabataba waa inaad wax u keento waa laga maarmaan gabadhuna sidoo kale haday meel jirto waa inaad odageeda hadaaya u keento waa la isku jeclaanaya insha Allah ta'ala salaamti iyo wajigi fiicneed ayaa kamida insha Allah ta'ala intaasan ku soo gabagabaynaynaa wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in